intaana muuqaalku guda galin in waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe qaybtii koowaad ee sheekadana waxay noogu ekeyd Marian iyo Salaad oo raadinaya taleefanka gabadhii u shaqaynaysay oo ay ka dhex maqleen guriga dhexdiisa gaar ahaan qolka store-ka wax lagu keydiyo markii qolkii soo galeen waxay arkeen waxay aad uga naxeen waxay arkeen gabadhii u shaqaynaysay oo meyd ah oo dhex taalo qolka store-ka ninkeedii ayaana yiri nabad dhaqso waa inaan cararnaa balse gabadhii liista ayaa soo booday oo tiri maya meel ma u socda aniga bartaan ayaan joogayaa waa naxay ninkii gabadhii Marian ayad waa ay carartay banaanka ay aaday ay sii bixisay misal albaabkii waa uu soo xiray waa ay naxday waxayna tiri Salaado maxaa dhacay albaabkayga fura balse cid laadasho waa ay weysay oo dhammaan waa laga aamusay waxay bilowday inay Salaad u wacdo sidoo kale ay iska oyso iyadoo naqoon wax ay sameeyso markiiba way soo carartay waxayna soo aadinin fallow ah oo ay taqaanay wax xaafadeedu dhawaa wax walbana waa ay u sheegtay wuxuuna yiri aniga waan arkay maalin hore markaan guriga iimaanaya ayaan arkay waxyaabahan oo idil ee ciladu xagee ka jirta gabadhiina yarsana ma ka warqabtaan gabadhii ayaan ku tiri gabadhan anaga maanan dhalin waxaana ka keensanay meesha carruurta lagu xanaaneeyo 2 isbuuc kaliya ayay nala joogtaa ninkii fallowga ah ayaa ku yiri haddaba ciladu waa iyada dhankeeda waa inaan soo ogaanaa gabadhaas taariikhdeeda iyo waalidiinteeda waxa ku dhacay iyo qisada dhabta ah ee gabadhan waxay soo baxeen waxayna soo aadeen meeshii waxayna weydiiyeen gabadhii ka shaqaynaysay meeshay tahay gabadha yarta ah waalidiinteedana maxaa ku dhacay gabadhii ayana ku tiri waxaas waxba kama sheegayo qofna ma la rabo inaan u sheego waana khalad arrinkaas inaan sameeyo lamana ogolo inaan sameeyo waxyaabahaas oo kale Marian ayana ku tiri inaad khiyaantay ayaan sheegayaa booliiska ayaan u wacayaa dhibaato badan ayaan ii geysatay waan ii qarisa gabadhaas gabadhii meesha ka shaqaynaysay tahay isdeji information waxaad u baahan tahay aniga ayaa ku siinaya ee weydii kaas waxay tiri ii sheeg gabadha waalidiinteeda maxaa ku dhacay gabadhii meesha shaqaynaysa ayaan waxay tiri gabadhan yarta ah waxaa jirta waxyaabo badan oo ay meeshan ka samaysay oo weliba aad aan oola yaabay waqtiyada ka mid ah ayaana carruurta meesha joogtay ay ii sheegeen inay nasracaad cajiib ah ay samaysay gabadha Muna ah waxaana weydiiyey nasracaadka iyo waxa uu yahay waxayna i tuseen waxyaabahan aad oola yaabay waxayna ku fiiqeen iyada farta iyada ayaana samaysay ay dhaheen iyadana waa ay diidaneyd inay samaysay iyadu waxay ahayd mid xilliyada dhan ku qaadan jirtay kalinimo waxaana jirtay macallimad ka shaqayn jirtay kaliya arrimahooda maalin maalmaha kamid ayaa waxaa laga waayay meeshii cuntada macallimadii ayaana raadisay gabadhii oo ka raadisay qolkeeda waxayna aragtay waxay aad ula fajacday waxay aragtay gabadhii Muna ahayd oo cunayso qorato caadi intay soo qabsatay ay iska cunaysay macallimadii ayaa qolka uga soo gashay waxayna ku qaylisay waxayna ku tiri waxaan ma cuni kartid iyo buuq ayay gelisay balse maalinkaas ayaa ugu dambeysay macallimadii la arko oo waaba la dilay mana la yaqaan cid dishay waxaa jira arrimo badan oo gabadhan aan ku aragnay balse aanan cidna la wadaagin gabadhan waxay ahayd mid ka duwan carruurta kaleeto ka duwan dhammaan dadka meesha jooga oo idil waxaana go'aansaday xilligaas inaan u geeyo nin ka shaqeeya maskaxda amaba se nin psychologist ah wuxuuna igu yiri gabadhan haddii jacayl iyo naxariis iyo deganaan ay hesho iyo meel ka wanaagsan meeshan waa isbedeli doontaa aniga ayaana ku yiri insha Allah waa isbedeli doontaa oo meel fiican ama qof fiican waan u heli doonaa idinka ayaana noqoteen dad raadinaya gabadhaas oo kaleeto anigana sidaas ayaan idin siiyey Marian ayaana tiri waxaana information maxaad nooga qarisay midda kale informationka saxda oo aan kaaga baahnayn waxay ahayd waalidiinteeda waalidiinteeda yaa dilay sideesa ku dhinteen gabadhii meesha ka shaqaynaysa ayaana tiri anaga xitaa ma garanayno booliiska xitaa ma garanayo ciidda dishay waxaa lagu dhex dilay gurigooda dhexdooda balse ma la yaqaan cid dishay iyaga guriga ayaa lagu dhex dilay balse gurigooda wuxuu ahaa mid gudaha ka xiran mana la ogu cid dishay mana la yaqaan Marian ayaan tiri adreeska gurigiisii aniga ayaa aadayo gabadha shaqalaha waxay tiri dad u dhadhow ayaan kuu sheegaya kuwaas ayaan garanayaa gurigii ayaana timid Marian gurigii ay deganaayeen waalidiinta Muna gurigaas guri dhow ayay tagtay waxayna u tagtay nin oday ah waxayna weydiisay wax walba wuxuuna uga sheekeeyay sheekada bilow ilaa dhammaad wuxuuna uga soo bilaabay inay jirto gabadh lagu magacaabi jiray gabadhii dahabiga gabadhaas waxa ay dhashay hal cunug oo kaliya cunugeedii ayaa ka xanuunsaday oo waa ka geeriyooday balse way u qaadan weysay waa ayna jeclayd cunugeeda weliba si zaa'id ah waxayna guriga ku haysatay cunugeedaas yar muddo bilooyin ah dhowr bil ayaana guriga ku haysatay cunugeeda yar oo meyd ah gurigeedan waxa uu isku bedelay guri cajiib ah waxaana gurigeeda ku dhex beermeeyay ruuxanta cunugeedii yaraa ee meesha ku haysatay muddo kadibna waxaa guriga loogu imaaday meydkeeda waa gabadhii dahabiga ahayd meydkeeda iyo meydka cunugeedii oo isgarab yaala weliba meydkeeda waxa uu ahaa mid jarjaran weliba mid u kala jaran xubin mana la yaqaanin waxa ku dhacay gabadhaas booliiska ayaa imaaday report ayana qoreen dadka ayana wareysteen balse waxba waa ay waayeen
waxna maysan ogaan iyo waxa ku dhacay gabadhaas iyo waxa dilayba. dadkii oo dhan gurigaas way ka carareen oo ma aysan soo degin ilaa waqtiyada kamid ah oo aan aragnay dad raba inay degaan gurigaas. waa ayna degeen waxa ayna ahaayeen waalidiinta gabadha Muna ah iyagoo wataan gabadhooda Muna ah ee yarta ah. guriga ayna soo degeen xilligaas ugu bilaabatay maalmo iska caadi ah iyo waqtiyo iska caadi ah. anaguna waxaan ahayn kuwo daris ah sidoo kalena iska yara warqaba. ninka wuxuu yiri waxaan wareysan jiray gabar ka shaqeyn jirta gurigaas waxay sheegtay in gabadha yarta ah ee ciidan wadataan ay tahay gabar cajiib ah, gabar ay wax ka khaldan yihiin. iyadoo 2 sano jir ah ay waxa sawiraan aad loola yaabo, sawiraan cabsi ah uusan sawiri karin xitaa qof weyn. waalidiinteedu waxay ahaayeen kuwa badanaa shaqeeya oo labadooda shaqo ay ku maqnaan jireen. gabadha shaqaalaha ayaana ahayd tan guriga ka shaqeysa xilli walba gabadhaas shaqaalaha ah ayaa guriga joogi jirtay. muddo kadib waxaa dhacay kiis dil ah waxaana la dilay waalidiintii gabadha yareed ee Muna ahayd. booliiska ayaa yimid waa ay sawireen, balse waxa cajiibka ah waxa ay ahayd in iyakii la dilay sidoo kale gurigooda uu ahaa mid gudaha ka xiran. waxaa kaloo kasii cajiibsaneyd gabadha Muna inay ku faraxsaneyd geedida waalidiinteeda. booliiskii ayaana qoray riboodkii balse waxba kama aysan soo saarin. dadka haddii ay wareystaan iyo haddaysan wareysaninba isku mid, cid ogaan kartay ama cid garan kartay sida loo dilay iyo cidda dishay maysan jirin. booliiskii ayaana go'aansaday inay gabadha geeyaan meesha lagu xanaaneeyo carruurta maadaama aysan jirin cid ka xasanayso gabadhaas yarta ah ee ku faraxsaneyd geerida waalidiinteeda. waxaana la geeyay gabadhaas yarta ah meesha lagu xanaaneeyo carruurta. gurigaas ee ku nooshahay ruuxaantana cid ka dambeysay ciddaas oo degtay maysan jirin. waxaana la ogaa gurigaas inuu yahay guriga ugaarsiga. gabadhii Maryan ahayd ayaa waxay tiri waxaa meel ku xayirin ninkayga, asaga ayaan u baahnay inaan soo badbaadiyo. wayna soo carartay guriga ayayna soo aaday. markii ay guriga maatay ay waxay maqashay ninkeedii oo dhahay waxaan ciyaaraynaa ciyaarta dhudhumashooga ee iraadi. waxayna ku dhahday hay ugu ciyaareen. waxayna xilligaas maqlaysay isaga iyo gabadhii Munaahid oo qoslayo. wuxuuna ku yiri kor ayaan saaranahay ee kor soo kor. markii eraygaas maqashay kor ayay u soo carartay oo kor ayay soo kortay gabadhii Maryan ahayd. waxayna aragtay ninkeedii oo saaran saqafka kore rabana inuu istuuro. waxayna ku tiri isdaji ay soo dego balse sikadiis ayuu isku tuuray hal mar. waa ayna dhahday waxaan macquul ma aan. waxayna bilowday inay iska oyso. waa ay oyso weliba si aad u daranayay u oysay. waxaana hal mar si kadis ah laabka albaabka ka soo baxay gabadhii yareed ee Muna ahayd, weliba iyadu aad u dhol cadaynayso. Maryan waxaa bilowday jirkeeda inay jajabaan, isna gacmaheeda iyadoon ka warqabin ay bilaabaan inay caadi istijabiyaanba. dhulka ayayna ku dhacday xilligaas. Maryan waa ay miyir daboolmatay. Muna waxa ay iska sii wadatay sawirida waxyaabaheedii cabsida ahaa. qaybtii labaad ee sheekadeenna halkaas ayay ku egtahay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya subscribe. aad ayaad u mahadsantahay. sidoo kale videoga like saar.